السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة الجسد وهذا هلكان نقدر ونسان واسكاي ميديا برو. أنا ما أنت وحيل الجوجو صاحب كي بلا ما أنت وحربنا هنا نسكور سنو برنامج كان نكوضي هاي شرم بو أو مالمهان يعني حد كيس مرتي عن مرتي زاد ونقضي أنا شلبي وحال لها شرم بو فنان أصلا إسكيس وهسو qofna ma wacdo qofna maaragtay heesaha maaragtay asaga ma uu talagelin in waxa ku sabab laakiin mar labaad waxa dhacday in uu soo heesay oo soo naqaaday hees shahaadada macna ma laha wadanku shaqo ma leh halo yeelo dalitu shiide maana la shuufo jeebku shilin ma leh halo buuxsho shahaadadu macna ma leh ha shaqayso bila ardayda dhacday iyo sharma boy marto maxaa xiriir oo ka dhaxeeyo maxaa sababa horta ardayda sharma boy horta ana xaamisanahay in ay marmarsimo ka dhiganayaan sharma boy horta waa fanaan heesaha soo qaad ardayda baastay way fiirsanaysaa laakiin inta imtixaanka u socday ardayda waxaa laga rabay in ay joojiyaan waxyaabo mashquuliya waa gartay shalay macnaha taasi waa la isku wada raacsanahay sharma boy waa fanaan ku shaqeysto shaqadiisa ee professionkiisa tahay heesaha ayagana dadka ayaga ka daba heesa maahana ma dhihin asaga ugu manata la gelin in uu kaga mashquuliyo waxbarashadooda laakiin hadda heeska ugu dambeeyay ee shalay iyo maanta hawada ku jirto shahaado macna ma lahan heeskaas kabar okay baladka shaqo ma laha ayuu yiri horta waa saxay horta baladka shaqo ma leh laakiin arinta shahaadada macna ma leh oo qaldan xoogaa haddii hadalkiisa si loo fiirsho yani wuu saxaya saadanta waa gartay marka hadalkiisa haddii si loo fiirsho waa sax arday badan oo jaamacada iskuulka kuwa iskuul bay ka baxeen waxay u gudbayaan heer jaamacadeed waxay ka soo baxeen heer dugsi sare waxay u gudbayaan heer jaamacadeed marka waxaa la arkay arday badan oo jaamacada baneeshay dhameeyeen oo fakultiyo badan barteen oo haddii ay yani beledka shaqo u raadshaan aysan soo heleen sidoo kale waxaa lagu maqaalaa in xataa dhalinyarada qaar oo baaj wad diyaarsaday oo heer jaamacadeed ah mootooyinka loo yaqaan bajaajka wado adiga ahaan marka maxaa dhihi laheeday oo kula tali laheeday dadka waxbarashada ardayda waxbartaan horta ardayda waxbartaan horta waxbarashadu horta waa iftiin qofa wax baran horta wax matarayo waxbarashadu waa iftiin wax walba heer bay ku tusaysaa marka jaamacada marka gudubtid oo ka gudubtid dhalinyarada hadda oo dhahday bajaajka ku biireen jaamacada dhameeyeen waxaa ku qasabtay jaamacadii maadaama ay dhameeyeen oo faculty badan baaj soo diyaarshadeen oo yani ay raadiyeen magaalka shaqo ka waayeen waxay go'aansadeen in ay iska jiifin guriga meelaha macalina daro iska warwareegaan derbiya iska fadhiyaan waxay go'aansadeen inay shaqaystaan horta taas waa ku taageersanahay maasha allah waxaa leeyahay hore sii socda waxaa samayseen waa mid fiican oo wanaagsan waa idinku taageersanahay waad mahadsan tahay bile markastona waa maaragtay waa loo baahan yahay qofka intuu meel fadhi lahaa inuu walow kaana dirhan ee dhaan carabta hal dirhan baa laha ka dhig wax uu soo shaqay in maalintii uu fofo wax uu keeno waa sax insha Allah waxaan rajeynayaa wadankan inuu wanaagsanaa doono arday walba oo markaas wax bartana uu waxbarashadiisa wax ku heli doono dhigin ha u dhigana heeskaasna dhig ha u dhigana Sharma Boyna wuxuu isku caday inuu asaga mas'uul ka yahay inuu ka marin rabaabi dhalinyarada waxbarashada والسلام عليكم وكما سنتهي وكما سنتهي ما دام أن جلس وقف جشوريسيا هذيك سنة كان هذا كقلن جبيه ميا كم تهاي إن شاء الله سنة كان هذا سنة بسيطة ذاتك كقيد جلي دونا كم ده وحد رجيس إن شاء الله أنا كوباس دونت إن شاء الله سفيان إن ما دام أدري جيس إنك كوباس دونت كورن مع علاقات كده هذه وهي شرم بوي والله أنا أرتاح شرم بوي والله يستعد أشيء يسي أضلع كان مقلي
dad lee ka maqlay laakiin asiga ahaan kama arkin mana maqal dad kale ka maqla bis inay soo baxday haystaan shahaado macna ma laha waa tahay waan sanadka soo socdan waxaan rajaysaa inaad maarad ku baasto إن شاء الله دو إلى إيران رجع ونكسن وكورجينا وقول ونكسن إن شاء الله تعالى أن السيدو كانت وضعني يرد حد وحبرنا يسنا وحاول رجيدونا إن أي معنى كفو جنودان شهادة معنى ما لها إرجاس شهادة كن عالما أو متعلما وحبرا ما وحلو جبرا وقتها هذا وحبرته أديك كون في عيسى إن إنسان قف كلام تعلم أنا هذا وحبرنا أديك كون في عدونتا أديك معنى اللي بكون عدونتا واتهاي واتكم هسنتها بلا كسوق بقولك برنامج كان نقول سوق بكشي وبالله التوفيق نادين كانوا كم سنتين داوش هذا مقالكاس وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبت قليل هاي برنامج كان برافق السوسي وحللنا سوسي على روسيو اسكسو يا